xaqiiqdii qof kastoo inaga mid ah waxaan marqaati ka ahay in dhibkaas maalintaas dhacay uu taabtay aniga shakhsi ahaan asxaab badan ayaan ku waayay maalintaa dadka si aad ayay taabteen idinkana waxaan aaminsanahay in dad badan oo halkaa ku naf waayay ay idin taabteen xanuunkaas ay sameeyeen argagixisada su'aal baan isweydiiyaa xaqiiqdii culimadii ugu wanaagsaneed waa haysanaa dalka qof kastoo Soomaali ah gabar iyo wiil hooyo iyo aabba diinteenna qalbigeena waa ku xoogan tahay diinteenna waa aaminsanahay aad bay u yar yihiin inta aan salaada dukan oo shayga ugu horeeyo islaamka ah dadka Soomaaliyeed waa muslim boqolkiiba boqol tukada haddana waxaan la yaabanahay in qulubteennii aysan weli gaarin oo aysan taaban dhibka kuwa nabadiidka ah ee argagixisada oo isticmaalaya isla diintii aan aaminsanayn oo aan isticmaalaynay 24 hours marka su'aashu waxay tahay sidee loo gaarsiiyaa qulubta dadka Soomaaliyeed inay xaqa u Allah tuso haddaan waxay tusaale u soo qaato maalinta shilka dhacay ee dad fara badan ay ku dhinteen ninka qaraxa waday waa qof muslim ah oo Soomaali ayuu ahaa soo sheeganayay weliise waxaan nool oo ilaa hadda nool saan aaminsanahay kii u soo fududeeyay kii u soo farsameeyay iyo kii soo alifayba wali waa nool insaan aaminsanahay walina way nagu dhex jiraan walina kama danqanayno hooyooyinka Soomaaliyeed waa ku carruur waayeen carruurtii Soomaaliyeed waa ku aabba waayeen maalintaas iyo maalmo kale oo la mid ah tirada bahay yaraatay oo ka dhacay dalka oo dhan gaar ahaan magaalada Muqdisho halkan waxaan rabaa inaan culimada Soomaaliyeed fariin uga diro waa runtood diinta waa aabihii na soo gaarsiiyay culimadeenna waa shuyuuqdeena Allah nagu anfaco ducadii weyneed oo soo jeediyay oo qalbigayga taabatay in badan oo idin kamid ah qalbigiina taabatay oo shiical dheer soo jeediyay horta Allah inagu anfaco culimada doorkooda ugu weyn waa run waxa loo baahan yahay inta badan maalmaha jimcada inta badan maalmaha muxaadarooyinka la qabo inay dadka waaniyaan inay dhalinyarada waaniyaan inay hooyooyinka waaniyaan ay tusaan macnaha diinta iyo diinta waxa ay farayso iyo waxa ay ka tusayso dhibka ay leedahay argagixisada oo ay ku hayaan shacabka waxa kale oo uu sheekha hadaaya taabtay waa run diintu waa diinteeni waa jecelnahay haddana madaaristeenu meelaha ay ku yaalaan waa wadooyinka dhexdeeda ay ku yaalaan iyadana inaan dib ugu noqono sababtoo ah cunugaas yaraanka markuu quraanka baranayo hadduu arko meesha uu ku baranayo inaysan munaasab ahayn diinta qalbigiisa kuma xoogaysanayso taas waa muhiim waay tan labaad oo aan rabo inaan halkan ka soo jeediyo waxa waaye culimadu ma dhahay way ka gaabiyeen laakiin xoogooda ha isugu geeyaan sida ay u tilmaami lahaayeen argagixisada oo ay xaqa uga sheegi lahaayeen oo ay waxay aaminsan yihiin uga sheegi lahaayeen ha adkeeyaan hana xoojiyaan taas ayaan culimada ka codsanayaa dhinaca dawladda haddaan u soo jeesto waa run wax kasta horta waxa ka horeeyo in aan aaminsanahay dastuurkeena sharciga islaamiga ku dhisan inaan aaminsanahay in waxana hagaayo oo na toosinayo ay diinta tahay diintana xiriirka lagu hayo shacab gudihiisa waa wadaadada oo ah xariga isku xira annaga iyo bulshada iyadana inaan xoojino waa muhiim waay waxa kale doorka dawladda ah in ay kor sare u qaado nidaamaynta iyo maxaa la dhahaa ka warqabka ciidamada amniga guud ahaan kuwa ku nool magaalooyinka oo ka shaqeeyo si tayadooda kor loogu qaado ay u gutaan si u soo ogaan lahaayeen ama u soo qaban lahaayeen maxaa la dhahaa dadka argagixisada ah waa in sare loo qaadaa waxa kale oo iyadana kamid ah in ciidamada amniga la faro maxaa la dhahaa kormeer joogto ah meelaha laga yaabo inay cadawga argagixisada ay ka soo gali karaan shalay waataan furno wadooyinka qaar oo tijaabo ahaan loo furay fariin ayaan halkan shacabka uga diray waxaad moodaa shacabka iyo ciidamada amniga ee walaalaheena inaysan lahayn xarig toosan waxaan ka codsanayaa shacabka walaalihiin waay ciidamada qalbiga u fura la shaqeeya u sheega meesha uu dhibka ka soo socdo kan dariskiina ah kan idinka fog kan wiilashiina kamid ah ee fidnada wada inaad u sheegtaan shacabka Soomaaliyeed ayaan iyagana ka codsanayaa ugu dambeyn argagixisada maanta ma ahan mabda
ومحل لها استراتيجية يكون لنا يعني محل لها شعب كصوماليات وأنا نجنا لنا معنا الدولة أهان استراتيجية أما فرسميسن والله هرتيجي كرو أرجع حسدا استراتيجية وطن مدلا مدا وقرن كرنا مالك وحريين مش رتبة هاته إن إذا عقبضها مالها وحريين لقصوا أفجروا